guddiga abaaraha iyo maamulka degmada Xarfo ayaa deeq raashin gaarsiiyay deegaano ay si mug weyn u saameysay abaaraha ku dhuftay Xarfo iyo deegaanada hoostaga raashinkan oo ay horay ku deeqeen guddiga abaaraha gobolka Mudug ayaa waxa la gaarsiiyay deegaano badan oo ku teedsan degmada Xarfo kuwaas oo ay ku nool yihiin reer guura ay si weyn u saameysay abaaraha degmada Xarfo iyo deegaanada ku xeeran waxa ka jirta abaar baahsan iyadoo reer guuraagii horay uga naqraacay deegaanadan ay ku soo laabteen ugu horeen dadkii ay abaarta saameysay ayaa ka mahad celiyay raashinka la soo gaarsiiyay iyagoo baaq u diray cid walba oo khayrka jecel dadkaasi waxay u baahan yihiin waxqabad waxay u baahan yihiin kaalmo ayaga iyo wixii ay haystaan oo duunya ka harayba waa isku mid dadka kaliya ma baahna duunyada ka sii liidata garaamka meesha keenteen dadka duunyada waa loo qaybinaya dadku gooni u cunamayo geel wuxuu cunaa masagu qamadi galey saliid haddaan sheegayana madaxda meesha waddanka joogtaa dadkii haata xogaalka waa jooga way noo keeneen boqolkiiba boqol way ku mahadsan yihiin waxaase jira weli in guddiga macnaha xoolihii iyo dadkii sidii u abaarsan yihiin abaartii u jidho dadkiina uu ka soo noqday macnaha guuray oo xoolaha rartay ayagoo sidii u abaaraysan garcad ay ka soo noqdeen waxaan ugu mahad celinaynaa in hay-adaha sharafta leh iyo maamulku ay nala soo gaaraan biyaha iyo cumteedka iyo cunada iyo xoolihiina sidii ay u abaaraysan yihiin geesta kale nabadoon maxamuud jibriil nabadoon khayrdoon iyo xildhibaan cabdiraxmaan xirsi oo ka tirsan guddiga abaaraha oo geestooda hadlay ayaa baaq u diray bulshada Soomaaliyeed iyo dawladda dadkan hadda meesha dhooban ayaan waxaan siinaynay raashinkii guddiga abaaruhu keeneen wixii ilaahay waafajiyay waxaanu soo siinay maanta isgoys meel la yiraahdo 51 qoys halka kana 30 iyo wax weheliyaanu siinaynay 4 bara kalena waa noo hareen raashinkii ay nagu wareejiyeen guddiga abaaraha ee gobolka Mudug waxaan soo gaarsiinay qaybtii u dambeysay aan meeshan ka qaybinaynay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin guddiga abaaraha gobolka Mudug annaguna waa sii gaarsiinay waxaan ku codsanaynaa guddiga abaaraha gobolka Mudug inay noo soo kordhiyaan waxyaalaha maaragtay aan dadka siin lahayn iyo hay'adaha caalamiga mar labaad waxaan u mahad celinayaa guddiga abaaraha gobolka Mudug oo hogaamiyo gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdinadiif Muuse Nuur Yare raashinkii 150 qoys ahaa ay u soo dhiibeen degmada Xarfo oo ku wareejiyeen guddiga abaaraha degmada Xarfo oo uu hormuudka u yahay Cabdulqaadir Cumar Maxamed gudoomiyaha degmada waxaanu maraynaa qaybtii saddexaad oo aan raashinka ka qaybino oo ah deegaamada ama meelaha degmada hoos yimaada oo reemiyigu dego isgoys waxaan ka soo qaybinay 50 iyo dhowr qoys meesha la yiraahdo tuulo farax boone iyo aageeda waxaan ka soo qaybinay 30 iyo dhowr qoys hadda waxaan taaganahay tuulo siraad oo dadkii deegaanka iyo miyiga dadkii abaaraysnaa oo soo hayaamay oo ka soo hayaamay bad garbari tiriiban awalna halka hayaan ku tagay oo gaadiid aysan naf u hayn ku qarash garoobay oo qofka ugu yar uu $1 ku qaadiyo reerka haddana inta kale lagu soo qaadayo dadku dawo biyo iyo baad inta waa u baahan yihiin gabagabadii gudoomiyaha degmada Xarfo Cabdulqaadir Cumar Jeylaani ayaa ugu baaqay in bulshada abaaraha saameysay gargaar la soo gaaro soo gaarsiiyay deeqihii ayaanta aan qaybinaynay naga soo gaaray guddiga abaaraha gobolka Mudug meelo badan baan ka soo qaybinay bara badan oo dad reemiye ay degeen kuwa markaa degayay oo dadkii soo laabtay oo ka soo laabtay garacad ama jiriiban iyo kuwa hore u degan inta way isugu jiraan halkaana way isugu jiraan dadkaana waa dad reemiye ah oo dadka xoolaha ka tabaaleysanayeen xoolahoodii ayaga iyo intuba quudin waxay u baahan yihiin shakhsi neefka xoolaha sida qofka bini'aadanka raashin ugu baahan yahay biyo ugu baahan yahay ilaahay baa mahad iskale waxaan ugu baaqaynaa qof kasta oo dadkaas arka aan ka danqanaya meesha doon ha joogay inay wax ka qabtaan oo wax la soo gaaraan dadku biyo u baahan yihiin hooy bay u baahan yihiin gogol bay u baahan yihiin cunana waa u baahan yihiin biyo baad inta waa loo baahan yahay waxaan u mahad celinayaa xarunta GCDB xaawa aadan camay oo ayaantan ayaduna ku garab waday biyo dhaan iyo dhar yar yar oo lagu talagalay dadku dhaxanta inay ka dugsadaan markii abaartu dheeraato dhaxan badan baa soo dhacda waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay abaarta inuu naga saaro waxaan ilaahay ka baryaynaa inaan dib dambe aan isugu imaan jiilaal hawshiis iyo abaar
Axmed Cabdullaahi Baasto, Puntland TV, degmada Xarfo.